mudane doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre guddoomiyaha golaha shacabka gabadhan abtigo ah sacdiyo samantar oo ah si hayaha xilka waa ka gudbaya iyadoo markii hore lahayd gabdhuhu aad bay ugu sacabinayaan waa sax guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirada xildhibaanada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaxweynihii hore hirshabeelle ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore cabdiwahaab dad badan baan ii muuqmuuqan ama iga khaldamaya dhammaan shacabka qiimaha badan leh oo nooc kasta iskugu jira oo halakan caawa munaasabaddan qiimaha badan oo aan ku khatimayno asbuucii aynu soo maalmihii wanaagsanaa aynu ku khatimayno waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan bogaadinayaa guddiyadii qabanqaabada labadiisii heer waxaan kaloo iyadana bogaadinayaa una mahadcelinayaa ciidamadii iyo qaybihii bulshada ee ka soo qayb galay oo aynu arkaynay munaasabadaha waxay ka dhigayeen waxaan iyagana bogaadinayaa kooxdii fagaaraha taleex oo gabadha magaceedu hadda iga maqan yahay hodan miyuu ahaa xaawo degan iyo odageeda iyo liibaan ha loo sacabiyo oo madaxweynehayno geesinimadii ka badatay iyadoo ummaddii saa u dhooban tahay kalsooniduu qabo dadkiisa dhexda gacanta ka taagay oo adduunka meel kasta ay gaadhay waan ku bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa kooxihii fanka waxaan kaloo bogaadinayaa dhammaan inta aan maskaxdayda ka maqan oo xuska maalmahaas dhiigga cusub ku beeray dhammaantood waa bogaadinayaa waxaana leeyahay meelaad joogtaanba guudaysta safaaradaheenna caalamka dadkeenna shacabkaa ee ku nool daafaha dunida dhammaan dareenkaasu waa galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin habeenkan qiimaha badan leh oo calankeena la taagay oo la dejiyey 3 calan baa la dejiyey calanka talyaaniga calanka ingiriiska iyo calanka UN-ka saddexda habeenkaa dhulka la dhigay keenna la taagay markaasaan waxaan ka mid noqonnay adduunyada waddan ka tirsan oo magaciisa iyo maamuuskiisa iyo gobernimadiisa iyo xornimadiisa leh khudbadda caawa waxaa leh madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka baa leh anigu dib baan idiin celinayaa taariikh baan ka sheekaynayaa taalooyinkan meelaha ka dhisani maxay yihiin maxay ku yimaadeen innaguse maxaan ahayn halkaasaan xoogaa erayo ka odhanaya innaga dalkeenna waxaynu ahayn dad soomaaliyeed oo dhaqan iyo diin leh culture iyo dhaqan isku maamula xeer beegti leh dhaqan baynu ahayn waxaana waktigaas oo aan maamul jirin gumaysigii ka hor aynu isku xukumaynay dhaqankeenna iyo xeerarkeenna waxaana ugu tun weynaa culimmada iyo odayaasha dhaqanka iyo dadkaasa indheergarad inoo ahaa waa deganeen waa dhaqnayn xeerarkeennaas ayna dhiqi jiray 1884 markii reer galbeedku qaybsanayeen africa oo shirkii barliin ee germany lagu qaybsaday waxaynu ahayn dalalkii la qaybsaday baynu ahayn waana layna sii kala qayqaybiyey waktigaa ka bacdi waxayna soo galay gumaysigii 1887 waxaa yimid ingiriiska 1889kiina waxaa yimid talyaaniga 1960kii baanu xorriyadda qaadanay halkaa waxaa u dhaxaysa 70 sano 70kaa sano waxaa lagu jiray dagaal baa lagu jiray iyo gobonnimo doon kadib shirkii barliin oo ka dhacay dalka germany waktigaa dhulka soomaaliya ingiriisku wuxuu gobolka waqooyi soo galay
muxuu ahaa 1887 halka talyaaniguna soo galay 1889 laakiin uu xoogeystay 1905 haddii aan aadno halganadii 1890 ilaa 1908 deegaanada banaadir iyo shabeellooyinka waxaa ka dhacay kacdoonno lagu diidan yahay gumaystihii talyaaniga waxaana dhacay dagaalkii Lafoole ee dhacay 1896 sanadkii 1899 ilaa 1920 waxaa isna dhacay halgankii sayid maxamed cabdulla xasan oo daraawiish ahaa oo ka dhacay muxuu ahaa deegaamo badan ka dagaal galay 21 sanana xornimadaas u dagaalamayay 1924 waxaa dhacay kacdoonkii sheekh xasan barsame oo ka dhacay shabeellada dhexe wuxuuna ahaa gumaysaha talyaaniga diidana iyo wixii gumaysigii sanadihii 1925 ilaa 1927 waxaa jiray iska caabinno iyo kacdoonno ka dhacay deegaanada iyo xeebaha bari ee dalka khaasatan degmada xaafuun 15 May 1943 waxaa muqdisho lagu aasaasay ururka SYL oo taalladaanu maanta ku magacaaban tahay ururkan dhallinyarada ahi wuxuu noqday tiirkii ugu weynaa ee halgankii siyaasadeed ee xornimada 1948 banaanbaxyadii muqdisho dagaalkii ha noolaato waxaa halkaas ku shahiiday dad Soomaaliyeed oo ay ka mid ahayd Xaawo Taako oo noqotay astaan geesinimo wadaniyad iyo midnimo qaran taalladaas ayaduna ku magacaaban 1949 waa dhacdadii dhagax tuur iyaduna waxay ka mid ahayd dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee halganka Soomaaliyeed waxay muujisay sida shacabka gaar ahaan dhalinyaradu uga dhidhiyeen dulmiga iyo gumaysiga xusuustooda waxaa maanta astaan u ah taallada daljirka dahsoon taallada daljirka dahsoon waa magac qarsoon waa magaca daljirka weeye qof kasta oo magaciisa aan la xusin oo geesinimo ku dhintay bay taalladaasi u tahay magac marka taallooyinkeenna taariikhiga ah waxa weeye xilliyadaasaa mid walba dagaal ka dhacay oo lagu dagaalamay oo lagu dhintay magac iyo sifayna ku dhacday xus iyo xusuus gooniyay leeyihiin ummadihii horena u lahaayeen innaguna inaan ogaano weeye masi kacdoonkaas iyo gobonnimadoonkaasi 60kii markaan helnay weli waa sii socday 1977 27 Juun waddankeenna kale walaalahan Jabuuti baa xornimadii qaatay marka xornimada sidaasaa loogu soo dhintay halgankaasay soo madhay maanta oo aynu joogno oo runtii aynu oran karno dadkeenna dhallinyarada dhiig cusub baa galay dareen baa galay wacyigay la socdaan adduunku maanta siduu isu bedbedelayo iyo muxuu ahaa damacyada shisheeye bay dareensan yihiin marka waynu arkaynay wixii dhacayay marka feejignaan iyo dareen wadaninimo iyo shalay haddii aynu maanta 66 sano xornimo haysanay waxaa ina ku beegan weli halgankii waa inoo jiraa anigu intaasaan oranayaa oo taariikhda hore iyo taallooyinka aan ku xusayo hana la doono taallooyinka taariikhdooda iyo macnaha ay leeyihiin dhallinyaradana ha loo sheego dhallinyaradu hadda dadka jiro waayalka iyagaa ka wacyigashan waan ammaanaynaa waa u mahad celinaynaa dareenkooda ilaahay ha barakeeyo waxa weeye feejignaan iyo dareen aynu lahaano intii dhimatayna waan u ducaynaynaa ilaahay muxuu ahaa naxariistii ha geeyo intii hadda dareemadan istustay waa la is arkay hadda oo dareenku isu muujiyey waddaniyadana aad iyo aad baan u ammaanaynaa halkaasna aan kala sii dhowaano alxamdulillah wasalaamantiin aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha loo sacbiyo guddoomiyaha guddiga